بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عن داود الكسر وهذا قضبض وركود هو وين أنا هنا وحاكم دني أو كشف قرشها لس أو دمعسيه مدحون حسن شيق سردون كترسن تركيا ومان تكم من نقضي برلمان كصومالي أو مدلو ديدنا فضيحة وين ومان يكون قاقين قد قدور شوكا آدم مذوبة وقاري قول سياسة كدي مركي وتنازلي وزير جامعة qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan hadduu al yiraahdo balse saaxiibayaal waxaa idinka codsanaynaa inaad subscribe sartaan janaalka si aad u heshaan wararka iyo macluumaad kalkan aan soo gelino mahadsanidin dhammaantiinba aynu ku bilowno madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu si adag ugu hadlay qorshe halis oo damacsan yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Puntland ay ka go'an tahay ilaalinta awoodda maamul goboleedyada ilaalinta heshiisyadii hore ee federaalka dani wuxuu ku adkeeyay in haddii arrintan la iska indhiro ay ka dhalan karto khilaafaad siyaasadeed oo weyn xiisadan ayaa si weyn u saameyn karta xiriirka u dhexeeya dowladda dhexe iyo Puntland khubarada siyaasadda ayaa sheegay in haddii tallaabooyinkan la qaado ay kordhin karto kala qaybsanaan siyaasadeed iyo xitaa khilaafyo ka dhaca maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya dani ayaa ka digay damaciisa madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in haddii uu federaalku u baabiyo ay ka imaan karto isku dhac hubeysan oo ka qarxa guud ahaan Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa si cad wuxuu ugu digay qorshe kasta oo lagu burburinayo nidaamka federaalka waxa uu sheegay in taasi ay horseedi karto khilaaf iyo burbur xoog leh waxa uu sidoo kale uu tilmaamay in markan uu qorsheynayo inuu duulaan uu ku qaado madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe abaabulka ayuu sheegay Dani in xilligan uu wado madaxweynaha Soomaaliya isla markaana uu diyaariyay ciidamo fara badan oo qorsheysan in lagu duulo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe reer baa socda ku saabsan nidaamka federaalka in la dagaalamo bareer baa socda in dastuurka lagu tunto bareer baa socda in la yiraahdo nidaamyadan sameysmay hal la dumiyo okay waa dumisay maxaa ku bedelaysaa maxay tahay doodahaas way imaan doonaan wax badan bay Puntland xeerinaysa inay doodo badan dib u dhigato laakiin publicly in loo hadlo ka maarmi mayso maxaa yeelay markaas saa u dhaqmaysid oo hadda midkaa hadlaayo aan aaminsanahay inay dad badan ka guuxayaan oo uu yiraahdo dowladda federaalka waa inay gobol dalka u xukuntaa oo iyadu ay siisaa caafimaadka okay haddaad tiraahdo xamar degaan gaar wey haddana aad tiraahdo anaa meelaha kale meesha waxa geynaysa xagee tira horta nidaamkii adduunka loo yaqaanay in sadaqooyin la baxsho hay-adakiina waa dhamaato casrigaas waxa loo socdaa marka waxa weeye inaad tiraahdo khayraadka Puntland ku yaal oo la malaynayo khayraadka ugu badan ee Soomaaliya inuu halka yaal anaa maamula inaad tiraahdo haddana anaa waxa u baahan tahay kaas siinay waxaas ma wax hadda meel la yimaada horta siyaasaddaas alwajiis ku hadlay waa midda madaxweyne Xasan qabo horta anaan hadda markaanti u noqonayo runtii inii sheegay meelana waa uga hadlay dadna waa u soo dhiibay laakiin ha ogaado dadka Soomaaliyeed waxay ku wada joogi karaan wixii heshiis ku yihiin waxaysan heshiis ku ahayn meel ku wada joogi karaan muhiimadeenu maanta qad iska ahayd inaan inii hambaliyo inaan inii mahad celiyo inaan diyaar garow adag aynu galno oon ka bilowno inaan diyaarino ciidamadeena iyo nafteena saacad kasta inaan diyaarnahay saacad kasta oo ciidanka loo baahdo inuu diyaar yahay dowladdiina awaamiir aan xaq ahayn weligeed in siin horar inayma soo siin haddana kuma jirto taladeed mar walba waxaa la rabaa inaad diyaar tihiin ciidan baa tihiin dalkan difaaciisa u dhaarateen Puntland dagaalo xaq ah baan gelinaa oo dadkiisa lagu difaacay waxaan rabnaa suurad ka duwan suuradaha dadka kaleeto inaan yeelano waxa ciidamada meelaha kale ka dhacdhacayo maqleyno inaan marna u ekaano mar Puntland waa hormuud in ay deganaanshahaas heshana waxa keenay xikmadda
iyo hoggaanka bulshadeeda siyaasiga ah iyo dhaqan ilaa ay hadda soo martay dhaqan xun oo dowladeed baa meelaha hareeraheena ka soo socda oo u baahan in laga gaashaan waan isku daynay inaan anagu siyaasadda fiican Soomaaliya geeno oo filla Soomaaliya waad ogtihiin ciidamadiina idinku ka mid ahayn baa geeyay iyadoo maare loo waayay dhowr ilaa 10 sano mustaqbalkana sharciga iyo dowlad wanaag inaan geynaan rajeynayna hadii ilaahay laakiin dowlad xumada duruufaha ka dhashay meelaha qaarkood ka abuurmeen indha dheer in loo yeeshaan rabo hadii ilaahay waad ogtihiin cadowgu marka laga tago siyaasad xumada iyo dowladaha ka imaanaya midka argagixisada kaliya maaha cadow waxaa jira aan ka dhicin oo burcadbadeed la yiraahdo cadow lamida waxa la yiraahdo tahriib ka shaqeeya jira oo kulli infiltration ku sameynaya ciidamada marka kalsooni badan aan ku qabaa hay'adaha amniga ee Puntland wali wararkeena ayaa daawanaysa markana sirdoon ka tirsan Turkiga ayaa maanta ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya wasiir jaamac ayaa maanta ku guuleystay kursiga Hobba 204 xilli kursigaasi uu hore ugu fadhiyay Isaaq Cali Subag tilaabadan ayaa waxa ay tahay mid xiise gaar leh maadaama sanadkii 2022 ay madaxweyne Laftagareen uu ka hor istaagay wasiir jaamac inuu u tartamo arrintan taasi ayaana maanta waxay dhalinaysaa fadeexad weyn oo guddiga doorashooyinka ay dhex mushaaxiyaan waxa inta dheer baarlamaanka Soomaaliya waxaa muddo kooban loo diidanaa inuu ka mid noqdo sirdoon ka socda Turkiga taasoo hadda noqotay saaxiibka koobaad ee Turkiga in ay ka mid noqdaan baarlamaanka Soomaaliya kursiga Hobba 204 waa si weyn loola socday muddo sanado ah waxaana la isku dayay sidii loo heli lahaa kursigan sirdoonka Turkiga ayaa kaalin lixaad leh ka qaaday in kursigan uu helo wasiir jaamac laakiin ugu dambeyn uu ku guuleystay maanta wasiir jaamac isagoo uu ka hadlayay guushiisa ayaa waxa uu banaanka u keenay qorshahan isku leh muddi mayla raayus xaaladiis sinca karnaatay laakiin ma ilaahay mahadis aha intigeeka liiqadii doorashadiis anna may ku mid aha musharaxiinta kursiga waxyaabaha kursiga aan inta ka qowda qabo inta muhiimsan ah inta beelaha matalaad qabe inta beelaha wali kursiga dhibaan ka qowda qori oo suur galbe inta beelaha lan federaalka madil rooga magaasho iyo deegaanka ku jeedaan sharaftis kor qaado intii matalaada dowladnimo oo rasmiga oo qaranka leeyay intuu gudub xildhibaanka federaalka madilka leey ay mas'uuliyad ku saaran tahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhan wali oo mas'uuliyadaasi oo dhan intii may leedahay Soomaali oo ka mid ah isina ni sharaftan intii magaaga Soomaaliyeed meel bay leeyna madintaas ku hirta wali kale oo may leedahay kursaba may leedahay laga qodobada lahayn dowladda horumarinta deegaanka boorqaadowka may leedahay waxbarashada dadka deegaanka may leedahay waxyaabihii kale oo service ee dowladda ku baahanayda intuu si ka ololayno si la raadi arrintaasi si weexay iyo waa may leedahay si balan qaade marka may bas ku rajeeyay intii codkin siira وكين سيدا أو كرسي جالسي أنا كفردة أنت أنا بلن عادي أتوقع هرنا ما تيجي كرسي جرادياي دقمود ويجي بوي والبعض أنا بلن عادي دقمود كبوي actually بيرلي ميول بتجاس باي تجاس جديد تجاس بقول تجاس بنادر تجاس لكن ميرا متبادل يعني كمان كدارين ويجي له مركا دقمود أو كسي كبوجيتين oo xildhibaan ahayn walbana aan qobadi oo baan xildhibaankii weelan walbana kale insha Allah si qowde dalka baahan marka si qodsaday si sharafleysi ku qodsaday intiisa codkii siidan oo may leedahay si aan ku guuleysada xubinimada baarlamaanka eedan ma sintin guud ahaan daawadeer wararkii aad ka daawanayseen janalka waa naga intaas bal saaxiibayaal waxay ka codsanayaa mar kale inaad subscribe saartaan janalka si aad u heshaan wararka iyo macluumaadka kale kana soo gelino mahadsanidin dhammaantiinba